إن الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب، دين سلام وأمان والناس هنا أحباب. إن الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب، دين سلام وأمان والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب. ولد الإسلام غريبا واليوم نراه غريب، وصفوا ديني إرهابا والمسلم صار مريب. ولد الإسلام غريب ووصى بها ديني، في الحل والترحال، في السلم في الحرب، في الأمن في الأخطار. إسلامنا عظيم، 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 إسلامنا عظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ku jirnaa weli duruusteennii aan ku sharxaynay manhajka dacwada ee jamaacatu ictisaam bilkitaabi wasunna. insha allahu tacaala maanta waxaan ka bilaabaynaa baabka kow iyo tobnaad waan kaga hadlayno insha allahu tacaala. cafwan waxaan ka bilaabaynaa insha allahu tacaala baabka tobnaad baan u jeedaa, oo aan kaga hadli doono haddii la yidhaaho masalada ku saabsan manhajka jamaacadan oo ah manhajka salafka saalixa iyo manhajka ahlusunna waljamaaca, oo ku saabsan sida wax loo daliishado iyo sida diinta loo fahmo iyo sida adilada shareecada loo baarbaaro. waana darsigeennii sideedaad insha allahu tacaala oo ka mida duruusta manhajka jamaacatu ictisaam bilkitaabi wasunna. saa la socotaana waxaan ku soo sheegnay markii aan ka soo hadlaynay manhajka anwaacdiisa in loo qaybiyo saddex qaybood: almanhaj alcaqadi walmanhaj alistidlaali walnadari walfahmi iyo almanhaj addacwi atagyiiri. marka maanta insha allahu tacaala baabkaani wuxuu ka hadlayaa manhajka xagga istidlaalka iyo fahamka iyo nadarka ah oo ku aadan sida diinta loo fahmahayo, sida diinta adiladeeda looga faa'iidaysanhayo. waxaa keenay in baabkan laga hadlo waxaa weeye dhowr sababood. sababta koobaad, sida diinta loo fahmhayo iyo sida adilada islaamka, adilada shareecada loola tacaamulahayo waa masalo muhim ah, waana masalo la isku khilaafay ama ay ku inxiraafeen firaqda qaarkeed oo meelo kale ay la aadeen, oo adilada qaarkeed ay diideen in laga faa'iidaysto, ama waxaan adilo ahayn ay daliil ka dhigahayaan, ama sida adilada loo kala hormarinayo aysan u toosnayn, ayaa ka mid a asbaabtii keentay in ay ku inxiraafaan. waxaa kaloo ka mid a ahmiyadda mowduucan, maadaama jamaacadan ay tahay jamaacad doonaysa in diinta islaamka loo noqdo, ummadda islaamkuna diinteeda ay u noqoto, ay ku camal fasho, ay ka faa'iidaysato adduun iyo aakhiraba. hadda diinta loo noqonayo haddii aan la fahmin waa la baadiyoobayaa. marka diinta in si saxa loo fahmo waxay shardi u tahay in si saxa loogu noqdo, in si saxa loogu camal falo, in si saxa loogu dhaqmo ayay u tahay. waddada koowaadba middaas ah. marka labadaas sababood ayaa keentay in manhajkan ama mowduucan laga hadlo. ilaa haddana inxiraafkii ama khaladaadkii ee mowduucan galay ilaa hadda way jiraan,
oo dadka muslimiinta qaarkood diinta sida loo fahmayo ma ay garanayaan marka asagaas baan ka hadli doonaa insha Allah taala midda koobaad waxaan cadeynaynaa ama aan sheegaynaa in manhajkeenu uu yahay manhajka salaf saalixa iyo ahlu sunnaha wal jamaacaha xagga wax daliishida waxa la daliishanaya maxay yihiin masalada diiniga masaajirta laga qaadanaya maxay tahay waa kitaabka iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo ijmaaca iyo qiyaaska saxiixa weeye kitaabka quraanka waa la yaqaanaa waa kalaamka Ilaahay subhanahu wa ta'ala laakiin sunna maxaa la yiraahdaa sunnadu waxa weeye wixii nabiga sallallahu alayhi wasallam laga soo wariyay oo xaqiisa ka yimid oo aan quraanka ahayn tabcan oo tashriica loola jeedo sunnadaas ha ahaato qowl ama ha ahaato ficil ama ha ahaato waxa loo yaqaano taqriirka nabiga sallallahu alayhi wasallam sunnada loo tiirinayaa waa inay ahaataa sunno ka sugnaatay oo isnaad iyo sida saxda culimada yaqaanaan uga sugnaatay qawaacida ay dajiyeen culamaa ahlu xadiis ama culamaa ahlu xadiis oo fankaas ku takhasusay qawaacida ay u dajiyeen waxa sunnada oo saxiixa ah iyo waxa aan saxiixa ahayn iyo sida loo maaragtay maxaan ku raahaa loo kala sugahayo qawaacideedaas ayadana ayaa loo raacayaa in qawaacida lagu dhago oo la isticmaalo sidii culimadu salafku isticmaaleen oo axaadiista iyo sunnada ay ku tadbiiqiyeen oo wixii daciifa iyo wixii saxiixa iyo wixii mawduuca iyo waxoo dhanba ay kaga hadleen in qawaacida la isticmaalo oo ayadu ay noqoto miisaanka lagu kala saarayo sunnada saxiixa ah iyo mid aan saxiixa ahayn waa laga maarmaan in miisaankaas lagu cayaaro ama qawaacidaas la yiraaho sax ma aha ayadana maarata fitno iyo diinta lagu cayaaro ayaa ka dhalanaysa qofku haduu yiraahdo xadiidkaanu saxiix ma aha maxaa yeelay ana ku riyooday ama uu yiraahdo midkaana waa saxiix maxaa yeelay ana raba ama xadiidkaana ma fiicna maxaa yeelay dhadhami ma hayo ama xadiidkan lama qaadan karo maxaa yeelay aqligu ka hor imaanaya ama maaragtay wax naas oo kala waxa soo dhan wax qaacida ma aha waxa loo noqonayaa waxa weeyaan qawaacidi culimadu ay dajiyeen una dajiyeen ayagoo diinta u noqonaya sida loo kala saari lahaa sunnada saxiixa iyo ahadiis saxiixa iyo waxaan saxiix ahayn tan kale waxa loo baahan yahay sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam inaan fahamno miisaanka ay leedahay iyo culayska ay leedahay iyo manzilada ay leedahay waa maaragtay waa masdarka labaad oo tashriica islaamka weeye manzilada quraanka ayay la macno tahay xagga xaraameynta iyo xagga xalaaleynta in la rumeeyo oo lagu amal falaana waa waajib ama ha noqoto sunnadaas mid mutawaatir ah ama ha noqoto mid aaxaad ah maxaa yeelay dad waxaa jira oranaya axaadiista aaxaadka lagu amal fali maayo fi masaa'il aqeeda lagu amal fali maayo mutawaatir kaliya sharti ah oo marka macnaheedu masaa'il fara badan oo aqeeda ah in meesha ay ka baxdo qofkii inkira in sunnada la qaato oo sunnadu ay xujo ay tahay oo sunnadu ay tahay masdar kamida masaadirta tashriica kamida qofkii inkira oo ama yiraaha quraanka kaliya ayaa nagu filan sida ay yiraahaan kooxada loo yaqaan quraaniyiinta loo yaqaano oo nabiga sallallahu alayhi wasallam sunnadiisa ahadiistii inkiray kuwaasi maaragtay yaani qowm iyo dad gaala ah weeye qofka marka sunnada inkira oo ahadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam inkira oo yiraaha diinta quraan kaliya baa laga qaadanaya ee wax sunna la yiraahdo ma jiraan qofkaasi waa u gaaloobahaya tan kale waxa weeye markii la soo dhaafo sunnada aqwaasha culimada sida maaragtay miisaanka ay leedahay iyo xurmada ay leedahay waa ka soo hadalnay waxaan sheegaynaa dhammaan culimada muslimiintu ama ha noqdaan saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo wixii ka dambeeyay ilaa yawmina hada ilaa qiyaam as-saa'a waxa weeyaan culimadu xaq way doonayaan diinta way yaqaanaan laakiin fardi ahaantooda qofku waa gafaa mas'alada marna waa asiiba mas'alada marka qowl uu yiri qof sheekh ah ama qof caalima uu yiri qowlkaasna uu khilaafsan yahay uu maarata nas khilaafsan yahay naskaasi ha ahaado quraan ama ha ahaado xadiis uu khilaafsan yahay qowlkaas la qaadan maayo qofkii yirina hada waa loo cududaaraya maadaama uu nin caalima uu yahay uu niyad wanaagsan maaragtay uu maxaanku u jeedo qawaacidiina uu ku socdo hayl ijtihaadka uu khaldami karaa qof bani aadamka ahna waxba ka hoos bixi kara marka qof kasta oo caalim ah haduu hadal yiraaho khilaafsan sunnada ama khilaafsan nusuusta la qaadan maayo maxaa yeelay daliilku
kitaabka iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam weeye qofka caalimka ahuna hadii uu gees maro asagoo ilowsan ama xadiidka aan maaragtay sixadiisa aan garanaynin hada qowlkiisa la qaadan ma hayo taasan macnaheedu duritaan la durahayo sheekha iyo caalimka ma ahane waa loo cududaarayaa sidiisa kale waa looga faa'iideysanaya tan kale waxaan sheegaynaa ayadana kamid ah in diinta la fahmo hadii aan soo sheegnay waxa diinta laga qaatay in kitaabka iyo sunnada yihiin nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo ijmaaca ummadda iyo qiyaaska saxiixa ah adillada noocaas oo kala ah ma in la khilaaf ama laga leexdo ma aha hadii meesha nas uu yaalo haduu nas yaalo saxiix ah naska saxiixa ah lagama tagi karo ilaa nas kale uu yimaado oo ka hor imaanaya ama nasakhaya ama maarad ka raajixsan marka nas hadii la helo nas kale ayaa meesha ka saari kara laakiin in naskii la diido ama aayadii la diido ama xadiidkii la diido ayadoo la oran hayo aqligu saas buu sheegayaa ama la oran hayo aniga maaragtay qalbigayga iyo maaragtay iyo dawqayga iyo wajdaankayga baa si kale sheegaysa ama la yiraaho si kale ayaa lagu riyooday oo wax kale la arkay la yiraa arrinkaas lama ogola waxaan kale la ogolayn in la daliishado waxaan daliil ahayn riyadu daliil maaha dawqa iyo maaragtay iyo wajdaanka iyo qofka waxa qalbigiisu jecel yihiin daliil maaha aqliga mujarradka ay daliil maaha marka in waxaan daliil la daliishado ayaa lama ogola sidoo kale waxa khalad ah in nusuusta qaarkeed la daliishado qaarna laga tago lafteedu dhibaato keenaysa marka nusuusta ku soo aroortay mowduuc laga hadlayo in la isku keeno oo la soo aruuriyo oo la sharxo oo culimada qawaasheeda lala kaashado oo saa loo kala rajaxo ayaa loo bahnaanaya waxaan kaloo meeshaan ku cad ayadana numberka 12 wuxuu sheegayaa maaragtay dadka taacada iska leh oo la adeecahayahi waxa weeye culimada waa la adeecayaa xukaamta waa la adeecayaa fuqahada aabayaasha waalidka maxaan ku raahaa xaasaska maaragtay midalan maaragtay qofka dumarka ninkeeda dadka maaragtay tarbiyada qaabilsan macallimiinta dhammaan dadka xurmada leh oo xukuumahaya waa la adeecayaa laakiin daacadoodu waa inay ahaataa mid waafaqsan amarka Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo amarka nabigiisa hadii marka ay qofka amraan wax khilaafsan amarka Ilaahay khilaafsan ama ahadiista khilaafsan hada marka la adeeci maayo waatu xadiidku ah la taa'ata li makhluuqin fi ma'siyati al-khaliq laakiin ayaga waa in maaragtay ma inta amarkoodu waafaqsan yahay amarka Ilaahay iyo amarka diinta waafaqsan yahay waa la adeecayaa oo maaragtay wiilku waalidkiisa inuu adeeco loo baahan yahay naagtu ninkeeda adeecada loo baahan yahay bulshadu inay dadkooda in maaragtay xukaamtooda muslimiinta ay adeecaan baa loo baahan yahay dadku inay maaragtay guud ahaan caamadu inay culimada ka dambayso loo baahan yahay وهكذا marka laakiin taacada la adeecaya dadka aan sheegayno waa inay ahaataa taaco ku xiran oo ku shardisan inaysan khilaafsaneen wixii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noo jideeyay taas macnaheedu yahay taacadu laba qaybsantaa taaca mutlaqa iyo taaca muqayyada taacada mutlaqa ah waa taacatullaahi wa taacatu rasuuli sallallahu alayhi wasallam taaca mutlaqa weeyaan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku amray ma oran kartid waxaan sax miya ama waa khalad ma oran kartid waa adeecaysaa sidoo kale nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku amray ayadana sidoo kale weeyaan maxaa yeelay waxa Ilaahay ku amrayo ama nabigiisu ku amrayaaba waxa wanaagsan un bay ahaan kara wax kale ma ahaan karaan taasi waa taaca waxa la yiraahaa mutlaqa ama taaca muqayyada waxa weeyaan waa taacada wixii ka soo haray oo waxa weeyaan aan ma aragtay ama ha aadan xukaam iyo madax ama ha noqdaan culimo ama ha noqdaan fuqaho ama ha noqdaan dad madax ah ama ha noqdaan waalid ama ha noqdaan macallimiin dhamaantood waxaas oo dhan taacadoodu taacatun muqayyada waxay ku xiran tahay inaysan khilaafsanayn taacada Ilaahay iyo taacada nabiga sallallahu alayhi wasallam nusuusta marka la fasirayo waxyiga nusuustiisa waa quraanka iyo sunnada weeye sidee loo fasirayaa ayadana waxa weeyaan nusuusta sida loo fasirayo sida loo daliishanayo sida wax looga soo istinbaatayo sida loo kala tarjiixinayo lafteeda manhajkeena waxa weeyaan waa manhaj as-salaf as-salih ahli sunna wal jamaa weeyaan asagaasan ku soconaynaa marka fahamka nusuusta la fahmayo sida loo fasirayo sida loo daliishanayo sida wax looga istinbaatayo kulligeeda qawaacid beeladahay qawaacidaas marka qawaacidii ahli sunna wal jamaa iyo salafkeena saalixa ayaan raacaynaa insha Allah ta'ala
tan kale fahamka islaamka waxa kamida in islaamka loo fahmo sidii ay salafku u fahmeen saasoo ahayd in islaamku uu yahay manhaj shaamil oo dhameystiran oo caqiido iyo maaragtay cibaadaad iyo muaamalaad iyo akhlaaq oo dhammaan nolosha qaybaheeda kala gadisan ka hadlahaya oo maaragtay kala shaandhaynaya oo hagahaya oo hagaajinaya marka islaamka waa manhaj shaamil ah oo nolosha oo dhan ka hadlahaya qaybaheeda kala gadisan in sida loo fahmo ayaa loo baahan yahay ee in loo fahmo in diintu caqiido kaliya tahay ama cibaado kaliya tahay arrinkaas sax ma ah islaamka marka maadaama uu shaamil yahay in kulligii la qaato oo loo aqbalo oo lagu amal falo jumlatan wa tafsiilan baa loo baahan yahay dadka qaarkood ayaa diinta u kala qaadahaya wax qiimo leh iyo waxaan qiimo lahayn ama shariicada ama ahkaamta ayay qaarna maaragtay ay fududeysanayaan oo qiimo tirahayaan qaarna way maaragtay qiimo u yeelayaan marka anagu waxaan leenahay in diinta la kala qaybsho oo qaarna la yiraahdo qiimo leedahay hal la sameeyo qaarna la yiraahdo qiimo ma leh maxaa ku falaysaa oo qofkaanu muxuu garku muxuu taraa marada la gaabanaya maxay taraysaa maxaan ku xataa qaar baa oranaya gabadh xijaabanaysa maxay isku dhibaysaa diintu qalbiga weeye caqiidadu qalbiga weeye alla ka cabsigu qalbiga weeye qalbiga waa yahay wixii qalbiga galaana inay muuqdaan baa la rabaa garamaysid marka diintu waa sax waajib bay leedahay farad bay leedahay maaragtay maxaan ku war xaraam bay leedahay xalaal makruuh bay leedahay mustahab bay leedahay isku darajo ma aha laakiin wixii ilaahay ku amray kulligood in la jeclaado oo lagu amal falo ayaa fiican hadaa ka caajistid adiguna hadaa aad ka caajistid qofkii ilaahay waafajiyay inuu ku amal falo oo ilaahay ugu dhawaanaya waxba ka sheegin oo qofkii sunno isticmaalaya aduu hadaa faradka ku ekeysatay qofkii sunno fulinayay in wax laga sheega maaha maxaan ku raahaa qofkii ilaahay subhanahu wa ta'ala uu jeclaysiiyay arrimaha noocaas ah in maaragtay la duro ma aha marka diinta dhamaantii wixii diintu amaantay in la yiraahdo qiimo ma laha maxaa lagu falayaa maxaa la isku mashquulinayaa waxaas waa maaragtay maxaan ku leeyahay diinta nuxurkeeda qaata waxa kale iska dhaaf la yiraahdo arrinkaas waa khalad diintu dhamaanteed waa nuxur wax faa'iido la weeye laakiin isku darajo ma aha marka qofkii diinta ku amal falaya dhamaanteed in wax laga sheego ma aha siiba garka iyo maaragtay ayadu waa waajiba in la deysto in marada la gaabiyo maaragtay oo maxaan ku raahaa anqowga laga kormariyo ama anqowga ay dhaafin ayaduna waa shay waajiba laakiin guud ahaan waxa soo dhan waxa weeyaan waxyaalaha diinta kamida in marka la yiraahdo diintu qalbiga weeye waxa muuqda shardi ma ayadana waa khalad marka anagu dhamaan diinta jawaanibteeda oo dhan baan qaadanaynaa ku amal falaynaa waxaan ugu amal falaynaa si tawaazun leh oo miisaaman oo shayga waajibka darajadiisa si shayga maxaan ku raahaa sunnada muakkadka darajadiisa si midna salaada oo kale faradka iyo sunnooyinka rawaatibta ah iyo sunnada mudlaqa ah isku miisaan maaha marka diinta anagoo aan garanayna darajada ay leedahay iyo sida maaragtay kala xoog badan tahay laakiin dhamaan in la qiimeeyo oo la jeclaado oo qofku isku dayo inuu maaragtay sunnooyinka ku amal falo ayaa loo baahan sidoo kale waxaan ka faa'iideysanaynaa يعني علمك علماء إنه قد تجين أما واحد لو يقانه التراث الإسلامي دين تان إسلام كأدب وحلاقة قري أدب وحلاقة هذلي وحبضم بمعرض رنتي لقد دياري مركب واحد لقد دياري علماء هراء أي معرض أي قرين أما علماء ما أنت معاصرين تا أي قرين إن لقى فائدة يسته ومعرض محن كورا لفهمه ونكستو يعني كم إذا علماء يحسوا كردية لقاته أيضا ولا بهيه marka ma oranayna anagu maaragtay kutubtii hore ma qaadanayne mid cusub baan qaadanayna ama ma dhahayno tii hore baan qaadanayna tan kale ma qaadanayno maxaa yeelay dhamaan culimadu kuwa mutaqaddimiinta iyo kuwa mutaakhiriinta dhamaantood nin kasto caalimihi dadaalkiisa ijtihaadkiisa ayuu leeyahay waan laga faa'iideysanayaa biidin Ilaahi ta'ala culimadaas maxaan ku raa hadlaysa waxa qoraysa yani qofku haduu sheego hadal daliil leh هذا هو أوكي ويا لكن هذا الذي عن دليل كلاهين ومارتي محن كوراها وهذا لص من ويا وحلوك لا ترجيحيه إن سلاهين بلغيابا مرك قولك هذا مرك كل في هذا ومارتي عن قلبي جاو وحصله وأصل هذا محن كوراها حقود وياهي قفك غاضن كرا أيضا لو تعصبين متكم إذا قول الكاس وحكوا مهمة ذلك المسلمين توح كستو خلافة
ودحدوda ka yimaada waa in loo ceshaa kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo kalaamka nabiga sallallahu alayhi wasallam halkaas baa loo celinayaa khilaaf kasto yimaada mas'ala kasta oo la isku qabsado in loo cesho marjicaas weeyaan fa in tanaza'tum fi shay farudduhu ila Allah wa rasuulihi ayatu ahid mid kale waxa weeye nolosha waa socotaa oo markasta masaa'il iyo ahwaal iyo qadiyad cusub baa imaanaya marka qadiyooyinka cusub oo imaanaya in loo ijtihaado oo waxa ay ka qabto diinteena iyo shariicadeena la sheego waa shay laga maarmaan weeyaan walidaalika ijtihaadka la ijtihaado ahkaamta oo laga istinbaato adillada laga istinbaato hayo waa fardu kifaaya dadka muslimiinta fi kulli zaman waa in laga helaa dad mujtahidiin ah oo waxyaalaha cusub ka hadlaya oo diintu wixii ka qabto cadeyn kara in la helo way fardu kifaaya weey marka baabka ijtihaadkuna baab xiran ma ahane waa baab maaragtay maxaan ku rahaa dadkiisa ay cid astaahisha oo darajadeeda gaarsiisan waa u furan yahay marka waa in la iska ilaaliyaa in dad aan mujtahidiin ahayn ama darajadeeda aan gaarsiisan in ijtihaadan looma ogola laakiin dadku marka laga eego xagga adillada ku amal falkeeda iyo xagga ijtihaadka saddex qaybood baa loo kala saaraa nin caami ah qofka caamiga la yiraahaa asagu qofka caalimka ah oo maaragtay diinta yaqaana oo diinta cilmigeeda iyo amalkeeda ku tuhunsan yahay ayuu maaragtay raacaya asaga ayuu weydiinaya masaa'isha waxa ku soo xiga qof aan caami ahayn mujtahidna aan ahayn oo talib cilmi ah ama aan maxaan ku raaha maaragtay adillada iyo diinta wax ka fahamsan qofka talib cilmiga aan mujtahidka ahayn oo asagu cilmiga iyo fahamka wax maaragtay maxaan ku raaha wax ku leh asagu adillada iyo ayuu raacayaan wixii tabartiisa ah hatta qawaasha culimada uu kala fahmi karaa waana kala raaci karaa saddexaad waa qof caalim ah oo ijtihaad gaaray asagoo ijtihaadkiisa iyo adillada waxay tustay ayuu ku ekeysanayaa qof kale warkiisana ma uu raacayo maadaama nolosha aysan istaagaynin oo nolosha ay soconayso waxaan dadka ugu yeeraynaa gaar ahaan culimada waaweyn in ay diinta ay cusboonaysiiyaan in diinta fahamkeeda iyo ku amal falkeeda dadka maaragtay loo soo dhaweeyo oo dadka loo fududeeyo oo diinta maaragtay laga tagay ku amal falkeeda ama fahamkeeda laga tagay in la soo nooleeyo ayaa loo baahan yahay oo al-mujaddiduun dadka diinta markasta soo cusboonaysiinaya inay joogaan ayaa loo baahan yahay si ahkaamta Ilaahay loo fahmo si nolosha bani aadamka lagu jaangooyo sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu doonayo laakiin waxa khalada in noloshiina ay socoto oo aysan istaagaynin oo markasta maxaan ku masaa'il cusub ay soo darinayso dadkiina ay diintii meel hore istaajiyeen oo aysan wadaynin oo aysan diintii maartay ka shaqaysiinaynin waxa kale oo jirta aan ka hadlaynaa diinta sida loo baaro ama loogu ijtihaado ama adillada loo istinbaataahi qawaacid bay leedahay qawaacideedana waxa loo yaqaano usul fiqhiga ayaa ka hadla marka usul fiqhigaas qawaacidiisa iyo dawaabidiisa iyo habka loo istinbaato ahkaamta qawaacid bay leedahay marka qawaacidii ay culimadu dejiyeen in la isticmaalo laga faa'iideysto loo baahan yahay marka dadka qaar baa qaba waxaas waa laga tagay qawaacid kale hala sameeyo oo istinbaadka iyo maaragtay adillada si loo istinbaado iyo si loo kala tarjiixiyo dib hal loogu noqdo oo qawaacid cusub oo usul fiqh cusub ah oo adilla oo maaragtay duruqul istinbaad cusub hala sameeyo dadka qaar baa qaba waxayna rabaan in ahkaam cusub marka halka ay ka soo baxday doonayaan waxyaalo badan la bedelo marka mas'aladaas mas'ala munxarif ah ama dalaal ah weeyaan oo dadka qaar kood baa laga sheegaa inay aaminsan yihiin ama ay rabaan ay leeyihiin usul fiqhiga iyo sida wax loo istinbaadaa qadiim bay noqotay ha laga tago marka arinkaas iyo dacwadaas iyo baaqaas baaq sax inuusan ahayn ayaan cadeynaynaa waxaan cadeynaynaa oo annaga ay maaragtay اعتقادسنahay waxyaalaha loo yaqaan an-nawazil ay tahay macnaheedu mas'alooyinka cusub oo noloshaan ku soo biirahaya nooca ay noqdaanba ha noqdaan xagga dhaqaalaha ha noqdaan xagga bulshada ha noqdaan maarta xagga caafimaadka waxa la midka mas'alooyinka loo yaqaan an-nawazil cidda ka hadli karta oo ka jawaabi karta inay ahaato dadka mujtahidiinta ah oo shuruudda ijtihaadka iska leh
saas ayaa sax ah bixamdillahi taala markastana dadka noocaasi waa joogaan oo ilaahi subxaanahu wa tacaala muslimiinta kama uusan faaruqin kama uusan dhammaynin wax yani xujada iyo diinta ugu aadan marka masaa'ishaas qof kasta inuu ka hadlo oo asagoo ka fadwooda ma ahane masaa'isha nawaasisha la yidhaaho culummada waaweyn ama mujtahidiinta in loo daayo saas ayaa maaragta ayay ku jirtaa ayuu ku jiraa wanaaggu si diinteenu aysan fawdo u noqonin oo aan loo khaldaminin meeshaas baabkii tobnaad ayaan kaga baxnay oo aan kaga hadlaynay manhajka ahlu sunnaha waljamaacaha iyo manhajka jamaacatul ihsan bil kitaab wa sunnah oo ku aadan sida diinta loo fahmayo iyo sida loo istinbaatayo iyo sida insha Allah ta'ala adillada loo kala hormarinayo oo aan iri dhamaanteed manhajkii ahlu sunnaha wal jamaaca weeyaan manhaj salaf saalix weey xagga fahamka xagga adillada xagga istinbaatka iyo waxa la midka ah waxaan ka hadlaynaa insha Allah ta'ala albaab al-hadi 10 waqti ayaa dhamaadan filayaa marka insha Allah darsiga kale ayaan baabkan ku qaadan doonaa baabka 11aad wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh